waxa ay ku haminaysa laakiin doorashadee waaye doorasho xura oo xalaala oo sharciga la raacay oo qofka bani aadamka ka qayb galaya oo xurriyadiisa wato taasa ay ahayd mid ay sugayaan dadka reer Muqdisho maxay la caasimadda Soomaaliya waa meeshii wanaag oo ka bilaabo lahay haliyaan xagee la aadaa marka waa isku daynay la fariista qanciya inta ka bedela wax u sheega war sidaan maslaxadu waa sidaan wadantu sidaan ku jirta maya maxaa rabtid annaga garanayna waxaan rabnaa horta dastuurkan hal celiyo dastuurkii 2012 ee ku meel gaarka ah loo noqdo war asiga dhahaya dastuurka hal bedelo kaasa sheegay dastuurka dib u eegis hal lagu sameeyo oo waxa laga saxo oo waxa lagu daro waxa laga dhimo waxa maanta meeshan ka dhacaya ama birta la rabo in laga rido wax aad looga xumaado waaye waxa la soo socoteen diiwaan gelinta wixii lagu sheegay oo dadka jidka loo istaagay qofka 2 jeer 3 jeer la diiwaan gelinay dadka gobolada ka yimid dadka dibadda ka yimid aan loo aabayeelaynin iyo saxaafadda iyo bulshada caadiga xurriyadooda sida loo dhibaateynayo maya kaasaan joogaynaa lagama gaaro war lagama gaaro intaasoo muxuu ahay 13 sano 14 sano lagama gaaro soo dhahayni siima dhihi karno marka horta duruufta maanta dalka sidaas ay tahay meelo badan aan waliba mabdi'iyan isla aqbalnay inaan baarlamaanka ku celino dhahno meelahan dib loo eego waran u sheegnay aayad quraan ma waa heshiis hadii wixii in la wada lahaado la wada joogan waa rabnaa dadka qaarkiis hadii ay meelo qaarkood uga dhageen in xataa dib u eegis lagu sameeyo meelaha qaarkood aan ogolaanay doorasho nasideedaba waa marxalo tusinaysa dad heshiisa kala dooranaya kaliya afkaar dadku kala duwan dad meesha soo gaaray waa magaalada Muqdisho waxaan wada ognahay jidkii loo baahnaa in la maro doorashada ka hor in loo diyaariyo marxaladaas shaqadii ahayd in la qabto lama qabanin laakiin waxa la aaday sida saaxiibada iga horeeyay ay sheegeen doorasho hal koox ay wadato oo laga yaabo hataa halka koox laftigeeda qayb kamid ah inay sii wadato maxay dhalinayaan marka waxa dhalinaysaa koow horta qaybta wadata inay isku qabato oo ku kala tagto oo ku kala xumaato oo colaad isdhexdooda ku gasho waxay dhalinaysaa maadaama aan si fiican loo diyaarin qabaa'ilka laftigooda Soomaalida ah inay ku kala irdhoobaan waxay dhalinaysaa doorasho aan la aqbalin inay noqoto sida leedin sheegaba hadoo kale dhibaatada iyo mushkilada iyo wax ma jiraan abni ma jiro dhaqaale ma jiro umadi ma jirto balaaya ka dhacday dadkan maalin walba loo muujinayo yawmul qiyaamah inuu soo istaagay sax ma aha ilaahay ayaa garanaya maanta yawmul laakiin dalkan maanta Soomaaliya 25 sano oo dawladnimada ay soo jirtay oo marna warlords iyo maleeshiyad ay dalka dhibiyeen marna maxaan ku raaa argagixisadan iyo kooxdan ay dhibayso maanta dalka maalin oo ammaankiisu ka roon yahay Soomaaliya marin kullina waa laga wada marqaati kacay magaalada Muqdisho ogeydeen oo wadada ugu weyn ee ugu caansan wadada Makka Mukarrama leeyahay wadadii meydka loo bixiyay oo qofkii mari tagay liif inta ku dhaco qalaf dhahay oo rag waaweyn oo wada naqaano halka ka tiri karaay ayagoo wadada maraya ay ku dhinteen awoodaas lacagta lagu bixiyay waqtiga lagu bixiyay waxay ku habooneed meel sax in lagu bixiyo مثلا maqaamka magaalada Muqdisho oo dastuurka ku qoran oo waqti dheer ku qoran oo madashu maalin walba ay ka hadlaysay waxba waa laga qabo waay maqaamka waxa ku xiga nidaamka doorashada magaalada Muqdisho waxa ku xiga guddiga magaalada doorashada magaalada Muqdisho waxa ku xiga in la balance gareeyo oo aad loo fiiriyo dadka magaalada degan iyo dadka Soomaalida oo ku soo hiranaya caasimad ahaan ugu soo xiranaya sida ay wax wadaagi karaan haddana waxa la rabaa iyadoo sidaas tahay dadka afkaar iyo ururo iyo axzaab inay ku yimaadaan arintaas arrin fudud ma aha arrin shaqo u baahan waay marka in la iska aado doorashan qabanayna oo kaliya ay noqoto waa la sameyn karaa
waxba ma soo kordhinayso haddii berri doorasho ay ka dhacdo magaalada muqdisho doorashada boobka la sheegay maxaa isbedelaya su-aashaas mis weydiisheen maxaa isbedelaya xataa guddoomiyaha gobolka isan bedelaya sidiis uu joogaya idan waxaan la samaynayo waa maal lagu ciyaaray waqti lagu ciyaaray ummadoo la wareeriyey dadkoo laga qaado xorriyadda bilcagsi waxaa la fogeynayaa dadka soomaalida dowladnimadan waa jecel yihiin waana taageersan yihiin laakiin maalin walba khaladka dowladda wuxuu ka fogeynayaa dadka dowladnimadu ka fogeynaya dowlad hirgeli karta ama shaqay karta shacab la-aan ma jirto dhaqaalihii waa aragteen dhibka ka jira deegaanka dhibka ka jira waa aragteen cadaalad darrada meesha joogto waa aragteen amniga waa aragteen dhaqdhaqaaqyada dhibka ka jira waa aragteen waxyaabahaasoo dhan qofka waxay ku reebanayaan saameyn bulshada waxay ku yeelanayaan saameyn waxayna fogeynayaan dowladnimada in la gaaro marka mar kale waxaan ku celinaynaa waxa ka socda magaalada doorasho ma aha waa arrin hal gruub hal koox qayb ka mid ah ujeeddo gaar ah oo ay ka leeyihiin ayna tahay extensionna hayru maqbuul waayo lama ogola mandate-ka dowladdu waa cad yahay 4 sano waaye 4 sano meeshuu ku dhammaado waxaa la rabaa dowladdii kale in la doortaa la rabaa ama xukuumaddii kale sidaas darteed waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed jujuubka iyo jiha wareerinta in laga daayo aan la fogeynin doorashada ay jecel yihiin ee dowladnimada ay jecel yihiin waxa hadda socdana waa wada ognahay ceebahooda 1 iyo 2 haddii la yaraa lagama dhammaanayo iyo guryihii duunsanaa iyo magaaladii duunsaneed maanta siday tahay waad arkaysaan nabadaana amnigaana ugu wacan amnigaa ugu wacan waa amni ummadda soomaaliyeedaa keensatay inaan ka dafirno ka xaqirno ma aha dhuusa mareeb waa tana siday ahaan jirtay waan garanaynaa maanta siday tahayna waan u jeednaa calashaay magaalo casri ah oo supermarketyo ku yaalaan oo maxaan ku yidhahdaa airport casri ah dhisanayso oo waddooyinkeedii dhisanayso oo institutionska dowladda mid walba uu guri leeyahay baydhabaa sida ah kismaayaa sida ah maxaan ku yidhahdaa magaalooyinka oo dhan oo waaweynaa sida ah waxaana keentay dadaalkii la sameeyey ee nimankan khawaarijta ah lala galay oo dib loo dhigay awooddoodii hoos loo dhigay la yareeyey lama dhammayn nimankii khatartooda way taagan tahay laakiin waa la hoosaa loo dhigay waa la yareeyey raalli may ka noqon lahayn caawo inaan si nabada meeshaan ugu casho inaad u malaynaysaa hadday kari karayaan maya raalli kama noqon lahayn mana yeeli lahayn inay awood u waayeen daraaddeed ayaa muxuu ahay alxamdulilah ilaahay mahad ha ka gaartay yaan ku nimida meeshaan waana sii wadnaa waxaan rabaa dalku waa fiican yahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto walaalahaasna waxaan leenahay ra'yigooda waa ixtiraamnay waa soo dhoweynay maalmihii lasoo dhaafay waxa aan samaynay horay looma soo samaynin dowladdaani sida ay talada u timiday 2022 inta shir ee wada tashi ee kala noocnooca ee ay qabatay waa sheegayaa qofkii hayana horay uma dhicin culimo isku keen wadaaddo shiri maxaan ku yidhahdaaye dowlad goboleedyada awlaaba shirkooda joogto ahay ganacsato isku keen caalamka iyo soomaali isaga keen shiri bulshada rayidkaa gooni u shiri yacni wax bulshada qaybeeda kale cid aanan la shirin oon la weydiin talada dalka maxaa 2013 bilowgeedii sanad iyo wax lamid ah anagoon xukun guuli aanan joogin ayaan isugu yeernay dadka maanta jooga walaalaha maanta qaylinaya iyo kuwa maqanba markaasaan dhex fadhiisanay annagaa marti qaadnay tikadha u dirnay dejinnay meel u tagnay dhegaysanay la shirnay madaxdii dowladda oo dhan geynay meesha inay meesha wax marayaan iyo xaalka dowladnimadu meesha u marayo si ay ugu sharaxaan presentation ugu sameeyaan